halkaas oo ay ku qalin jabiyaan kumanaan kun oo arday ah isla markaana Soomaali ah ayagoo ka kala baxaya jaamacadaha kala duwan ee ku yaala dalka Masar jaamacadda Qaahira Asar Shariif iyo Cayn Shamsi sida 6 Oktoobar iyadoo ardaydan ay isugu jiraan habla iyo wiilalba sanad waliba ayaa halkan lagu qabtaa ayuu dhiirigelin weyn u sameeyo telefishinka caalamiga ee Universal barnaamijkan ayaa alaaba waxa ka soo qayb galay isla markaana shahaado sharaf guddoonsiiyay tii ay 4 sanadoodba ay wadeen ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barta magaalada Qaahira danjiraha dalka Masar u fadhiya Soomaaliya isla markaana ah ambassadorka jaamacadda Carabta u fadhiya wadanka Masar ambassador Abdullahi Hassan Maxamuud asagoo guddoonsiinaya dhammaanba ardayda Soomaaliyeed ee ka qalin jabisay jaamacadaha kala duwan ee sida 6 Oktoobar jaamacadda Qaahira Asar Shariif iyo Cayn Shamsi أفريقيا يا نعبوك زعيم أفريقيا يا نعبوك زعيم وعود تالي وتالي وعود تالي عين عرف وعود تالي وتالي وعود تالي عين عرف الرجالي قريكبوك كل عرب أدنى قريكبوك كل عرب ugu horreyn waxaa hadalkii furay guddoonsiinta shahaadada kadib guddoomiyaha naadiga ardayda Soomaaliyeed ee wadanka Masar Cabduqaadir Cabdiraxmaan Ibraahim Qayre asiga oo mahad u celiyay dhammaan ardayda Soomaaliyeed ee caawiqalin iyo telefishinka caalamiga ee Universal ba idaarada ardayda Soomaaliyeed waxay ugu tala gashay arday badan oo keenay imtiyaaz iyo kuwa jijid keenay in ay abaalmarin gaar ah ay siiyaan kuna qusqaataan ardayda soo socoto oo jidka ku soo jiro in ay arday badan oo keenay imtiyaaz iyo kuwa jijid keenay in ay abaalmarin gaar ah ay siiyaan kuna qusqaataan ardayda soo socoto oo jidka ku soo jiro in ay ardaydaas ku daysadaan dad badan waxay aaminsan yihiin in imtiyaaz laga keeni karin jaamacadaha Masar dad baa waxay aaminsan yihiin in maqbuul bas looga bixi karo oo yaani qofna oo keeni karin jiidan ama imtiyaaz balse maanta waxaan haynaa arday keentay imtiyaaz iyo jiidan taasna waxay noo tahay haddaan nahay ardayda Soomaalida sharaf aad noogu soo hoyatay oo aad qiimo u leh intaas haddaan uga gudbo in ay waxbarashada muhiim tahay waxaan kaloo ardayda ugu tahniyadeenaa in maanta ay tahay maalin Ramadaan ay noo dhalatay bishii Ramadaanka marka waxaan inii rajaynayaa in aad si fiican bishaan uga faa'iideysateen waxaan kaloo u mahad celinayaa ardayda maanta qalin jabisay iyo dhammaan ardayda ka soo qayb gashay xafladan aad u wacan waxaan kaloo mahad gaar ah u celinayaa TV-ga Universal oo mar walba aad noola shaqeeyo nashaadaadka uu naadiga ardayda qabto sidoo kale waxaa meesha ka hadlay Sheekh Yuusuf Xuseen Jamaal oo xubin saraka jaaliyadda Soomaaliyeed ee wadanka Masaarida asiga oo dhiirigelin weyn u sameeyay sanad waliba ardayda Soomaaliyeed ka qalin jabisay kulliyadaha kala duwan ee wadanka Masaarida lugaalada kuwa u qumo ku toosan waa leeyahay okay cilmiga ayaan baranay haddii aan cilmiga baranay kadib maxaa nala gudboon maxaa nagala rabaa waxaa nala gudboon cilmiga marka la barto kadib in lagu camal falo dadka la gaarsiiyo maaragtay dadka xaq loogu gargaaro dulmiga looga hortago laakiin waxaa nasiib darro ah markaan cilmiga qaadnay inaan intaan dib u laabanno oo aan dhex galno dadka juhalada waxay sameynayeen afcaasha juhada ay sameynayaan oo kale dadka juhalada ah inaan sameynaa nasiib darro ah waxaa laga maarmaan maadaama aan ogsoonahay dalkeena waxa la degay jahli inuu yahay jahligaasoo sababay waxa la yiraahdo qabaliyada waxaa laga maarmaanaa inaan jahligiisa maadaama qofka maanta cilmiga barto oo wax qaad aqoonyahanka Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Dr. Saadiq oo ka yimid wadanka dibadiisa ayaa ku dhartay inay sharaf weyn tahay in wadanka loo laabto isla markaana wax laga qabsan karo wadanka gudihiisa waxa uu yiri wallaahi waa idin dhartay oo billaahi oo tallaahi waxa sharaf iyo magac iyo karaamaba idin kugu jira inaad dalkiina ku noqotaan waad guursataan waad wax ka qabsataan gaajooda in la gaajoodo ceeb ma
dhibtooda in la dhibtoodo ceeb maaha laakiin waxaa hubaala idinna inaad wax istaraysaan dadkiinniina wax taraysaan liibaan xirsi ibraahim oo ka yimid magaalada birmingham ee waddanka ingiriiska ayaa tusaale u soo qaatay inay tahay waxbarashada wax muhiim ah waxa uu yidhi yacni 25 sano ayaan waxaan ka shaqaynayay buu yidhi warshadda aan ka shaqaynayay wuxuu yidhi yacni aqoon ugama aan shaqaynaynin waxaan ahaa buu yidhi nin markaa yacni garbararato ah oo xamaali ah oo wixii loo diro sameeye markaa haddii dhulka fiiq la yidhahdo fiiqo haddii la yidhahdo halkan qaado nin waxaan ahaa sidaa u shaqaysta buu yidhi runtii waxaan ku gaaray buu yidhi yacni inaan lacag badan aan qaato laakiin nafteeda waxaan dareemayay buu yidhi in wax iga maqan yihiin lacag aad u badan lacag 30,000 oo pound ayaan sanadkii qaadanayay buu yidhi hadda markaan ka gabagabadii xafladda waxaa soo gunaanaday ambaashadoorka waddanka masaarida u fadhiya Soomaaliya Cabdullaahi Xasan Maxamuud waxauna mahad u celiyay ardaydii caawa qalin jibisay asiga oo yidhi dhalano wax dhalo oo la barbaariyan waa u baahan war wiilal yahow iyo gabdho yahow anigu hadda hadal kale oo meel yaallo aan ku sii wadwadaa ma jire inaan idinku faraxsanahay ilaahayna marag ha ka ahaado idinna ogaada allahna idin dhowro ilaahay tawfiiqdana iridda ha idinka geliyo aad baan mar kale idaaradda naadiga ugu mahad celinayaa inta meesha ka hadashay professorkan London ka yimid iyo Sheekh Yuusuf iyo Dr. Saadiq iyo ra'iiska naadiga iyo intii kale iyo wiilka inoo qadimayay iyo kii kale inoo gabyay iyo kulli waan idin mahad celinayaa waa bishii Ramadaan ee kariimka ahayd ilaahay ha laga yaabo oday inuu intaa yiraahdana waa laga maarmaan ilaahay ha laga yaabo sidoo kale gabagabadii barnaamijka ayaa waxaa mikrofoonka telefishinka Universal ula dhex qaaday ardayda Soomaalida caawa qalin jibinayso aragtidooda sida ay tahay qalin jibay jaamacadda aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed waxaan shahaado u hibeynaya ummadda Soomaaliyeed iyo ardayda dhammaan ardayda wax baranaysa waxaan kaloo aad ugu mahad celinayaa TV-ga Universal oo mar walba ka qayb qaata dhaqdhaqaaqyada dhalinyarada iyo ardayda waana mahadsantihiin waxaan ka baxay darajo very good mujay jiddan aad baan u faraxsanahay waxaana shahaadada u hubeynayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed waxaana leeyahay bismillaahi raxmaanir raxiim magacaygu Maxamed waxaan u mahad celinayaa marka ugu horeyso telefishinka Universal TV iyo wariyaheena caanka ah reer Qaahire Mahad Carabow runtii kaalinta weyn oo ka qaato mar walba inuu si fiican door weyn uga qaato warbaahinta ugu gudbiyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta wada joogaan waxaan aad iyo aad ugu hambalyeynaa mar labaad iyo mar saddexaad xasan jaamac allaale ayaa la yidhaahaa jaamacadda qaahira ayaan ka baxay gaar ahaan kulliyadda beeraha maantana aad ayaan u faraxsanahay walaalahayga Soomaaliyeed oo kala qayb qaatay xafladdii weynayd ee khariijiinta ahayd ama ay ku baxayeen ardaydu magacayga waxaa la Cali Cumar Macallin waxaan ahay ardayda maanta halkan ka qalin jabinaysa sanad dugsiyeedka 2007-2008 aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay mahad ballaaran waxaan u soo jeedinayaa kanaalka Universal TV oo asagoo isku hawla arrimaha Soomaaliya gaar ahaan ardayda halkan aan rabaa inaan uga baaqo dhammaan ardayda Soomaaliyeed ee ka qalin jabisay sida wanaagsan ay juhdigooda ugu bixiyeen inta hartayna waxaan rabnaa in Ilaahay sidaas oo kale uu waafajiyo haddaba waajibkana saaran waxay tahay haddii nahay khariijiinta waxaan ka qalin jabiyay kulliyadda daraasaad insaaniya qismi cilmi ijtimaac waxay jaamacada al-Azhar sida caawa dareenkaagu yahay maadaama gabdhihii ay waxbarashada ku yiriin oo saddex kaliya aad heedeen والله dareenkayga caamo soo koobi karo boqol aad baan u faraxsanahay sidoo kale aad baan ugu markaas hambalyeynaya ma ugu mahadnaqayaa Universal TV iyo markaas sida fiican ay markaas naga qayb qaateen xafladda qalin jabinta waa mahadsantahay waa walaal magaca فارح حسين يوسف هيا فارح جامعة قلن جبسي جامعة القاهرة كلية بيرها هيا سيدي هدرين كعوة ولا درين عاد وناكسن واي عاد ما فرح سنة هاي يعني أنت أنا أرضي الصومالية هلكن كقلن جبني هذا نوع أورك يعني أنا مرحلة دي قيب وين وكم إذا يعني هدرت أنا أيام كنت تخصص كيجو هاي قسم جولي بتاريخ ده وحا هلكن أنا ربا إن mahad uga celiyo dhammaan dadkii gacan ka geystay barbaarintan aad u qiimaha badan ee xilliga marxaladda adag ee waddanka uu marayo dawladda qiimaha iyo khadarinta loo waxa inta inoogu dhamaada barnaamijkii xiisaha iyo galkacalka ee qalin jabinta ardayda Soomaaliyeed caawa ka qalin jabi afarta jaamacadood ee kala ah jaamacatul Asar Shariif jaamacadda Qaahira iyo jaamacatul Ayn Shamsi iyo jaamacadda 6 Oktoobar
telefishinka universal ayaa aalaaba dhiirageliya sanad waliba iyadoo sanadkan oo ay ahayd sanadii 2007 iyo sanadii 2008 iyadoo ay dhammaad u tahay sanada 2008 sanad waliba halkan uu ku qabto xaflad uu soo qaban qaabiyo naadiga ardayda Soomaaliyeed iyo idaaradaba iyadoo sanadkan idaarada uu gudoomiye u yahay Cabdiqaadir Cabdiraxmaan Ibraahim Khayre oo ah ra'iiska naadiga ardayda Soomaaliyeed ayaa waxa uu dhaxaad u ahaa arday aad u fara badan oo ka qalin jabinaya jaamacadaha kala duwan ee afarta ah Mahad Carabow Cali telefishinka Universal Al Qaahira